marka horeysa tacsi waxaan u direynaa sida aqoonyahanka horeba sheegeen ummadii madaxweynayaasha ka dhigatay markii hore labada nin Axmed iyo Saciid ama Puntland ha joogaan ama Somaliland ama Jubbaland ha joogaan waa idinka tacsiyeena reer Jubbaland iyo reer Puntland labada nin maanta horjoogaha inoo ah marka labaad waxaan xaal halkan uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto falalkii argagixisada ahaa ee falxumada ahaa ay kaga kaceen airportka Aadan Cabdullaahi Cismaan ay kula soo degeen hubka ayaan ka raali gelinayaa Soomaalidu meel kasta ay joogto walaalayaal raalliha laga ahaado gaf dhacay weeye waxay ahayd inaan hadda ka hor qabanay laakiin nin walba dambaa dhibtay maanta baan odayaasha iyadu ishelay ummadda Soomaaliyeed waan ka raali gelinayaa Soomaaliyana uma baahna kala qoqobide waxay u baahan tahay 30 sano ayay kala maqnayd oo burbur badan ku soo jirtay waxay u baahan tahay isu keenid iyo isku hayn bay u baahan tahay in uqdad la kala geliyona uma baahna dalku shirkan sida horeba loo sheegay walada badda ku mashquulsan haday dawlad tahay haday shacab tahay iyo kuwa ilaa xalay ilaa habeen hore ilaa durraad meesha irdeeda taagnaayo qaarkood aan garanayo anigu oo maxkamadda horteeda taagnaayo barafku ka dhacayo oo heesiyay oo calanka sitay waa u hambalyeynaa waxaan leenahay waxa weeye dalkan de awoowayaasheen baa inooga tagay awoowayaasheen way soo dagaalameen waa sidii ay ugu dagaalameen inaynu gacanta ugu haysano dalkeena inagu lahaano ayaa loo baahan yahay cid hadeer qaadan karta inagoo soo jeednana ma jirto haddii wiilasheenu iimaan daraadaan oo wax isdaba mariyaan de waxaas socon mayso iyagana waxaan leeyahay kuwa caynka ku fikira oo yiraahdo deked baan iibinayaa ama waxa weeye waxaan iibinayaa garoon diyaaradeed sida ragga qaarkiis war ka noqda waxaas oo iska daayay tii hore baanu hadeer timirta hore dab loo waayay buu yiri dhibaatada naga haysato u jeednaa shalay MOU-gii la saxiixay baa dhibtaas oo dhan inoo geystay araahdu waa baxsan tahay dadka kanu waa dad reer Puntland waa dad masiirkoodii horeyna uga soo taliyay haddana ka tashanaya waa dad baaq diraya marka ugu horeysa waxaanu ka midaysanahay arrinta badda haddaanu nahay bulshaweyntaas waxaanu garab taaganahay oo hiil iyo hoo iyo hantiba ula garab taaganahay arrinta badda cidda ku hawshaysan iyo sidii aanu ugu gurman lahayn waana ku xisaabtamayaan maal iyo muruq iyo maskax iyo hadafba iyada waanu garab taaganahay kuwa hadeer runtii qiimaha badan oo hawsha ku loo idmadayna jazakallahu khayr baan leenahay waajib baad haysataan dastuuriya oo garanaysa Soomaaliya oo dhan aad haysaan ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa taariikh idinkana inay idin noqoto Soomaaliya taariikh ay noqoto guusha aad maanta hordhaceedii aanu hadeer aragno idinka ilaahay saasaanu idinka baryaynaa arrinka kale waxa weeye arrinka masiirka reer Puntland waxaa lagu asaasay arrin maskax iyo muruq badan iyo maskax badan gashay waxa isku yimi ummado fara badan oo deegaamada degan oo cid walba ka kooban waxay ku dhisteen nidaamkaas ma aanu doonayna inay cid ku cayaarto in la iibgeeyo in lagu takarfalo in Soomaali lagu dibindaabiyeeyo in walba si doona u ka yeelo anagu raali ka baniin horeyna uga maanahay haddana ka noqon mayno waxaanu leenahay walaalkay Cabdullaahi Saciid Dari madaxweynaha tahay annaga ka dhignay adigu gurigaaga kala baadan imaan xilka waa lagu magacaabay waxa lagu magacaabay inaad wax wanaajisid inaad wax ku dibindaabiyesid ama wax ku Soomaali aad ku dibindaabiyesid saaxiibkooba aan lagu magacaabin rumaan ku sheegay nin baa wuxuu yiri laba nin baa dadka aan caay jirin oo nin macaan buu ahaa maalintii dambe geel isaga iyo wiil uu dhalay baa geel xirgeeyay markaasuu maalintii dambe geel iyo cabay iyo walba araka tiri markuu araka tiri buu yiri qaalintii ilaahay bilood baa maqan markaasuu aabbo goormay qaalinta ugu dambeysay wuxuu wallahi kalkii hore ila joogtay baan u malaynayaa dadka ma caay jirin qodhay xirada ceeb baa ka raacday buu yiri qodhay iyo xiraday ceeb baa ka raacday hasha aad goortay soo gaadhay aad gara weyday waxaan ku leedahay masiirka Soomaaliyeed iyo kii Puntland markhaati waxaanu ka nahay adeer
sida ay u muuqatay inay ceeb ka raacday laakiin daba qabashaad leedahay weli kumaanaan dhicin waxaan ku leenahay walaal annaga xanaanada kama taliyo raalli kama nihin waxaanu la hadafnahay sida maamul goboleedada kale ay xor u yihiin oo ay u doonayaan taladooda iyo masiirkooda inay u madax bannaanaadaan inay Soomaali ku matelaan inay madaxtooyada iyo siyaasada Soomaaliyeed sida ay u socotay inay ula socdaan baan doonaynaa runtii waxaan baaq u dirayaa Soomaali meel kasto ay joogto dal iyo dibad inay midoobaan inay wanaagga iyo sharafta iyo karaamada dalka iyo dadka iyo diinta ay ka shaqeeyaan arinta ii labaysaa waxay tahay oo shirkayaga ku saabsanayd oo buddig u ahayd inaanu ka hadallo badda Soomaaliya oo maanta hareeraha laga taagan yahay oo ra'iisul wasaare ku-xigeenkii iyo tiimamkii ku maqnaa ay guulo badan ka soo hoyeen iyo mujtamacii Soomaaliyeed oo tegay maxkamadda Heeg waxaan leeyahay guushaas Soomaaliya way u soo hoyanaysaa insha Allah ta'ala xoolahaas ama baddaas ma baadiyoobayso ilaahay idankiisna in guul laga gaaro baan rajaynaynaa Soomaaliya meel kasto ay joogtana waa hambalyeyn doontaa way soo bixi doontaa wayna bogaadin doontaa taariikhdana waxa gali doona intii ka soo shaqaysay ama xukuumad hore ahaato ama xukuumadda hadda joogta ha ahaatee qodobka ii labayaa wuxuu yahay madaxweynaha dawladda Puntland oo wafdi ku yimi oo aanu muddo sugaynay oo maatankiisa bogaadinaynay oo sidii loo dhaqaajin lahaa arrimaha Soomaaliya horyaal iyo geedi socodka doorashooyinka u yimi oo runtii aanan annagu reer Puntland odayaashii Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku taxalluqa Puntland annagu aanan waliba arkinba madaxweynihii Puntland insha Allah waxaanu baaq ugu direynaa annagii baa baaq u direynaa kuwii hadee Puntland joogay iska badaaya annagii Muqdisho joogay baa galabta baaq direynaa baaqaas waxaan leenahay madaxweyne meeshaas aad joogto dad xalane waxa jooga dad ilaashada wadamadooda iyo masaaliixdooda Soomaaliyana intii ay la qaban karaan aanu markasta ku bogaadino laakiin danahayaal iyo waxa inoo yaali caasimadda Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliya guryaheena iyo hoteeladeena waxa aan inagu leenahay baytaladu hortaal halka waxa la rabaa inaad ummadaada u timaado inaad dawladdaada iyo magaranaysaa dhulka laga xukumo dalka aad timaado inaad taladii iyo wixii oo horeyna aad wax u qabatay haddana aad rabo inaad qabiyo tidho inaad u timaadaan rabnaa waxaanu rabnaa waxa aanu doonayno inaad nala doontaan rabnaa waxaan marka hore ku hormarayaa Puntland waxaan leeyahay mudane madaxweyne Cabdullaahi Saciid Dani ujeedooyinka loo asaasay Puntland waa dhinac martay Puntland waxa loo asaasay 3 qodob kow inaan ka shaqeyno midnimada Soomaaliyeed labo inaan calankii Soomaaliya markii la asaasay 1998 98 calanka Soomaaliya meeshuu yaala cid walba way ogtahay in calankii aan kor u qaadno qodobka saddexaad wuxuu ahaa inaan ilaalino lacagta Soomaaliya shilinka Soomaaliyeed oo markaa kunka ugu dambeeyay inaan ilaalino saddexdii qodob idinka ay weydiinayaan xagee marayaan waanu garanaynaa meeshay marayaan maanta midnimadii Soomaaliya meeshii uu raadin lahaa wuxuu ka doorbiday inuu hoos tago calankii UN-ka taa waxaan leeyahay madaxweynahaygi mudane Cabdullaahi Saciid Dani ka yeelmeen taa ka ogolaan mayno haddaynu nahay aqoon-yahanada haddaynu nahay waxgaradka dhalinyaradii wax ku soo bartay ilaa shahaadada labaad waxaan ku diyaariyay Puntland aniga marka ma yeelayo in lagu ciyaaro magaca suncada iyo sharafta iyo karaamada Puntland dadweynaha Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa
Puntland waa aayihii waa mustaqbalkii waa hooyadii Soomaaliya sababtoo ah markay Soomaaliya ay baabaaday waxa back up loo noqday meeshii lagu noqday ee laga soo bilaabay waxay ahayd Puntland taa marqaanti doon way waxa kaloo aynu hormuud u ahayn inaynu dib u soo celinno caasimadii aynu dib ugu soo celinno dawladnimadii karaamadii iyo sharaftii taasna marqaantimo doonto weeye waa la ogyahay waxaasoo dhan waxaynu u sameynaynay inaynu mar walbaba hormuud u noqono hogaaminta midnimada ummadda Soomaaliyeed taa waxaan leeyahay madaxweynaha Cabdullaahi Saciid Tani lacagta meesha dhigtay waa ognahay calanka meeshu taagan waan ognahay midnimada Soomaaliyeedna haddaad ka doorbiday inaad xalano ku xarooto waxaan leeyahay anigu saaxiib baan nahay ka soo bax oo maanta ujeedadii loo aasaasay Puntland hormuud u noqo taasaan uga baxaya qodobka kale ee ummadda Soomaaliyeed baaq waxaan u jeedinayaa aan leeyahay annagu haddaan nahay reer Puntland ma nihin dad meesha aad dhigteen meesha ay hogaamadeena dhigeen ee dhigteen ma nihin dad ka weyn baan nahay tan kale waxaan ku leeyahay maanta waa ogtiin Soomaaliyeed waxaan ku dagaalamaynaa waa baddi dhulkii waa ku dagaalanay laga soo bilaabo ilaa Axmed Gurey ilaa iyo maanta waa ku dagaalamaynay dhulka taariikhdiisa waa la hayaa baddi baan maanta ku dagaalamaynaa nimanka kuukuyada ee leh muxuu ahaa waa dagaalamaynaa adeeryal anigu waan naqaanaa sida Nairobi loogu dagaalamo laakiin idinku ma taqaanin sida loogu dagaalamo Muqdisho horta taa ogaada sida Nairobi loogu dagaalamo ilaahay waana baray laakiin idinku ma taqaanin sida Muqdisho loogu dagaalamo taas waa qodob baan intaas ooga baxaya waana u hambalyeynaya dadka maanta ku heelan badda inay soo dhiciyaan maxkamadda habeen iyo maalin u taagan waxaan leeyahay hambalyo qodobka saddexaad aan ku soo gabagabeynaya waxa weeye madaxweynaha mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Maxamed Xuseen Rooble iyo Maxamed Mursal saddexdaba waxaan leeyahay ku dadaala doorashada hala qabto hala dedejiyo cid diidan haday Puntland diiday haday Jubbaland diido isima jiro aqoon-yahanna jiro wax garad baa jiro taas waa ka gudbaynaa laakiin ha lagu dadaalo sidii doorasho loo dedejin lahaa waana mahadsantiin waxaan rabaa halkan inaan uga diro ummadda Soomaaliyeed baaq badihii iyo dhulkii laynagu haystay oo Kenya ay nagu haysatay inaanan kana kaaftoomahayn haddii nala ay maxkamadda xataa noqoto dhinac kale inaan u diyaar garoobayno oo aanan u kala harayn wiil iyo gabar iyo oday iyo dhexdo noo xiran tahay taa waxaan ogeysiinayaa ummadda Soomaaliyeed nimanka heeg jooga oo uu ra'iisul wasaare ku-xigeenku u horeeyana waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waajib waxa gudanaysaan in Suuriya oo xaqa ilaahay ha idinku guuleeyo maanta oo kale waa maalintii la kala bixi jiray oo dhowr magac dadku raggu kala yeelan jiray marka magaca ugu fiican ay yeelataan baan idin rajaynayaa haddii ilaahay idmo intaa waxaan kaga gudbayaa badda ajandaha aanu isugu nimi oo halkan wuxuu ahaa Soomaali doon baan yiraahdaa Soomaali doon waxaynu u diyaar garownay Soomaaliya meel ay joogtaba waxay u diyaar garowday doorashooyinkii loo diyaar garoobay oo ummaddu ay diyaar u tahay waxaan u malaynayaa hadda in aan la kala maqnayn maamul goboleedadii madaxweynihii Soomaaliya barlamaankii hooyooyinkii guddigii doorashooyinka in lagu dhan yahay oo aan meel kale jirin waxaan rabaa maadaaba aan cuqaasha gobolka Puntland ka mid ahay inaan halkan baaq uga jeediyo laba nin oo aan anigu odayaasha aan nabadoonka u ahay oo xalane ku jira inaanu idhaahno annagu idinma dooran xalane waxaanu idiin doorannay Soomaaliya in ay isu keentaan waxaanu idiin doorannay ayaha Soomaaliya in ay ka shaqaysaan waxaanu idiin doorannay isu keenid Soomaaliya ah haddii xalane haddaa gasheen xalane waxaanu ku ogeynimo safaarada wakiil ka ah oo ajnabi ah haddii ciidankii aasas ka qaadeen oo ay idin ilaalinayaan maanta Amazon waa wax aad looga naxo waa wax laga yaxyaxo waa waxaan Soomaalinimo ahayn waa waxaan dadnimada ku jirin waxaanu leenahay saa naguma matashaan hadday Puntland tahay iyo hadday Jubbaland tahayba naguma matashaan saas
labada ninba waxaan ahay nabadoonkoodii odayaashoodii baan ahay xaq baan u leeyahay wixii xun inaan ka hadlo wixii sanna aan ku soo dhaweeyo waxaan leeyahay ka soo baxa meesha ku jidhaan dadkii idin doortay baanu nahay cuqaashi baanu nahay dalku doorashu aaday waxa la idinku yeeray ummadda Soomaaliya meesha laga xukumo waa garanaysaan haddaa ka carartaan ciidankiinni oo ka carartaan madaxweynihiinni oo ka carartaan barlamaankiinni oo ka carartaan cuqaashiinni oo ka carartaan hooyooyinkii shalay idin sacabtumayay waxaan u malaynayaa hadda YouTube-ka ku jidhaa aniga iyo xarago iyo in rag codkana weydiinaya baanu hayno ka hadlayay maalintuu doorashada ku jiray koodhe dib uma aragno ninka marbay ka bariiqataa haddii madaxweynaha iyaga baqdina gashay kafaaladiisa annagaa qaadayna nabadoonnadii baanu nahay madaxweynaha la hadli karaa haddii dowladda baqdina kaga jidho waa kafaalad qaadaynaa mas-uuliyaddiisa waa qaadi karaa waxaanu leenahay madaxweyne soo dhawow dadkaaga u imow doorashadii ka soo qaybgal guddigii doorashooyinka soo diyaari annagu hulkaa ku jidho oo hadda halkaa aad gashay aad baan uga naxsannahay tan labaad waanu ku darsanaynaa waxa weeye qoorqoor isagoo aan bastoorad sidan buu ka soo degaay laboorka ninka la yidhaahdo bahalkii isagoo aan qori kaa wadan buu ka soo degaa baqdinta belada oo baasuukayaasha iyo dabajeexyada faraha badan aad baanu uga wasuusanay ma jeclayn inaad soo qaadato annagu dee odayaashii Puntland baanu nahay magaaladii waxaana leeyahay war belada idinku jidhaa maxay tahay habartii naga hortimaada waxay leedahay war idinku madinaan cuqaashi ahayn Puntland maxay tahay saskan aad qabtaan oo beladan isugu soo xirxiraysaan ma ku sii fogaan maayo xumaan uma lihi nabadoonkiisi baan ahay inuu wanaagsadaan jeclahay wax wanaaga baan ka doonayaa sharaf iyo qiimo iyo wanaag iyo soo dhaweyn buu iga mudan yahay waxaan leeyahay mudane madaxweyne soo dhawow madaxweynaha iyagii baa tahay sidii aanu kuu dooranay ha garab marin Soomaalina waxaanu leenahay hala wada doono Soomaali hala wada doono xilliga ajnabi ay waxay noo yeerin jireen waxaan u malaynayaa waa dhamaatay dowladdii waa taa hore u dhaqaaqday dalkii meeshuu maraya waad aragtaa wiilasha yaryar halkan waxaan uga mahad celinayaa wiilasha yaryar oo ciidanka ah haramcad gorgor danab waa ku diirsanay magacooda kor Allah ka yeelo dalkii idinka ka mas'uula adeer aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh